بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walbay joogaan. waxaa inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. waxa gabayga maanta la yidhaah daalin iyo daacad, wuxuuna ka hadlayaa dadka daacadda iyo kuwa daalinka si u kala duwan yihiin iyo farqiga u dhexeeya. wuxuuna ku bilaamayaa insha Allah sidan: qofka daacadee dadaalka badan Allah dul saraysiiya, qofka daalinkee dulmiga badanna Allah khashifa daa'iman, qofka daacadda Allah dembiga ka daboola, qofka daalinkana ibliis baa dulaysto soo dira, qofka daacadda Allah darajo u yeela daa'imana, qofka daalinkana ibliis ayaa dagaal ahaan ugu danaysta, qofka daacadda Allah awoodiyo deganaansho ku dada, qofka daalinkana ibliis ayaa dariiqa xaqa ka duwa, qofka daacadda Allah qalbigiisa nadiifiyo dowga xaqa ku ilaasha, qofka daalinkana daciifnimo ayuu door bidaa naftiisana kama daayo dulmiye. dadow ama dariiqa jannadaad hayn ama dariiqa naarta, labadaas wax ka da'weyn dunida laga waa. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay ina allaha caliimun bilmufsidiin. insha allah walaalayaal, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.